digniin iska ilaali 5 shay aan videogan kusoo qaadan doono waxay halis gelinayaan caafimaadkaaga. Death triangle ama danger triangle of the face oo loo yaqaano triangle-ka halista ee wajiga, sababta magacaas loogu bixiyay iyo waliba dhibaatooyinka ay keeni karto. Waxaan uga hadli doonaa qodobka ugu dambeeya ee videogan. haddaad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe saar. haddii aad subscriber hore u ahaydna isku soo noqosho wanaagsan, videogan like saar, commentina kasoo bixi sidaad u aragtid videogan. Number 5, hindisyada oo aad isku celisid. markaad xirtid afka iyo sanka si aad u celisid hindisyada, waxaa sare u kaca pressure-ka maskaxda gudaheeda. taasina waxay ciriiri gelinaysaa xididada dhiigga siiya maskaxda iyo waliba neerbaha. taasi waxay sababi kartaa madax xanuun, inay dhaawac gaaraan xididada iyo waliba maqalkaaga inay dhibaato u geysato. isticmaalka waalasha plastic-ga ah. waalasha plastic-ga waxay ka samaysan yihiin maadooyin kala duwan ay ka mid tahay bisphenol A. cilmi baaris la sameeyay ayaa si xoog leh waxaa la iskula xiriiriyay maadada bisphenol A iyo waliba kansarka. waalasha plastic-ga markii lagu kaydiyo cunto waqti dheer ama ay kuleyl arkaan, sida marka lagu cabo koobabka caaga ah, shaaha kulul ama kofiga kulul, waxay cuntada ku sii daayaan maadooyinka ay ka samaysan yihiin oo ay ka mid tahay bisphenol A. bisphenol A markay jirka dhex gasho waxa ay keeni kartaa dhibaatooyin dhanka endocrine system-ka iyo waliba kansarka sidaan hore usoo sheegnay. Number 3, cadayga cuntada kadib. waxaa laga yaabaa in badan oo idin ka mid ah inay cadayga u sameeyaan wanaag iyo nadaafad markay cuntada cunaan kadib, laakiinse ma ogtahay inaad dhibaato u geysan kartid ilkahaaga markaad cadaysatid isla markaad cuntid kadib, khaasatan markaad cuntid cunto acid leh ama cabitaano acid leh. buraashka aad ku xogaysid ilkaha, acidkaas ayuu wuxuu gudaha usii geli karaa ilkaha, wuxuuna dhaawici karaa animalka ama coverka iligta. coverka iligta markuu dhaawacmo ama uu jilco, waxaa u fududaanaysa inay galaan suus. dhaqaatiirta ku takhasustay ilkaha ayaa waxay sheegeen inay wanaagsan tahay in dib loo dhigo cadayga 30 daqiiqo ilaa 1 saac markaad cuntada cuntid kadib. nadiifinta dhagaha iyo waliba sidaad u bixisid dhukayga. 90% dadku waxay isticmaalaan suufka dhagaha lagu nadiifiyo. jooji isticmaalka suufka dhagaha, sababtoo ah wuxuu gudaha usii riixayaa in ka badan inta uu banaanka usoo saarayo. suufku waxa kaloo dhaawici karaa xuubka dhagta. dhagahayna waxay u samaysan yihiin si automatic ah iyagoo isku nadiifin karaan, balse hadday noqoto inaad adigu nadiifiso, marka hore waa inaad qoysaa. maadaama uu dhukaygu yahay wax xabag ah ama adag, waxaad ku qoyn kartaa eardrops ama baby oil. Number 1, danger triangle of the face. waa mowduuc inta badan aan laga hadlin sababtoo ah waa yartahay si loo arko keesas noocan oo kale ah, laakiin markay dhacdo waa arrin halisteeda leh. triangle-kan waxay ku taalaa sanka qaybtiisa kore ilaa iyo meesha hoose ee afka korkiisa ah. habajinin hana taataabanin nabar ku yaala wajigaaga, khaasatan areadaas. xididada dhiigga ka qaada triangle-kaas aan soo sheegnay waxay xiriir la leeyihiin xididada maskaxda. markaad taataabatid ama aad bajisid nabar ku yaala sanka iyo areadiisa, infection-ka nabarkaasi wuxuu gadaal u aadi karaa xididada maskaxda, kadibna waxa uu keeni karaa infection-ka maskaxda sida meningitis ama brain abscess. haddaba ka digtoonaaw inaad taataabatid nabar meel kasta uu ku yaalo, khaasatan nabraha wajiga iyo nabraha areadaas. haddaa ilaa halkan soo gaartay waa ku mahadsantahay daawashada videoga daawatay. waxaan rajeynayaa hal mise laba inaad ka faa'iiday. hadday sidaas tahay fadlan like saar, subscribe na saar si aad u daawatid videoyaal badan oo caafimaadkaaga u wanaagsan. waxaan ninkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.